asxaabta ku soo dhawaada sheekadii xiisaha lahayd ee miyaan qorsadaa mise waan qirtaa. qaybtii hore waxa ay inoo maraysay aad ayay u carootay way karkartay keligeed ilaa xad ay ku sigatay in ay gurigiisa ugu tagto. waxaa keliya ee u diiday inay sidaa samaysana waxay ahayd ayadoon aqoon halka uu degan yahay. waxa ay haddana wacday saaxiibteed Xafsa oo wadada ku sii jirta. inta ay is-ilowday ayayna weydiisay bal inay siiso haddii ay garanayso nambar kale oo laga heli karo Xasan maadaama uu kiisii dansan yahay sirfakatid. holow maxay Xafsa ugu jawaabi doontaa arrintaasi? ma noqon doontaa ugu dambeyn mid qorshayaashii Igraan fashalisa? kuna soo dhawaada qaybtii 20aad. Xafsa oo aad ula yaabtay su-aasha ayaa u sheegtay saaxiibteed in aysan wax nambar ahba ka hayn Xasan, ayadoo sidoo kalena weydiisay waxa ay tahay sababta ay Xasan iyo nambaradiisaba u raadinayso. Igraan oo isgaratay in ay mar kale xadka dhaaftay ayaa ugu jawaabtay in aysan sidaasi ahayn islamarkaana ay doonayso Ismaaciil afkeeduna uu Xasan soo dhafay maadaama ay baryaba arrimihiisii ku mashquulsanaayeen. Xafsa ayaa u sheegtay in ay ayadii jecleedba ay iska ilowday wax lala yaabana ay tahay in ay weli xusuusato weliba ayadoon wax dan ah ka lahayn. allah ayaa runta u sheega waxayna u raacisay in nambar kale aysan ka hayn Ismaaciil aan ahayn midka ay ayada ka hayso. Igraan ayaana ugu jawaabtay in ay casharo ka doonaysa Ismaaciil balse ay iska sugi doonto ilaa iyo inta uu ka shidayo taalkiisa. dhanka kale ninkii Xasan ahaa waxa ay isbarteen gabar kale oo ayadana isla jaamacadda la dhigata laguna magacaabo Warda. waxa uuna bilaabay inuu xaggeeda ku qaato inta badan waqtiyadiisa firaaqada ee jaamacadda bedelkii uu Igraan la qaadan jiray. ileen xiisihii gabadha ayaa ku cusbaa laakiin Igraan ma ahayn mid u riyaaqda arrinka. waxa ayna bilowday in ay ku canaanato kuna qasabto in uu ka haro gabadhaasi Warda ah raadkeeda. Xasan oo aan isdhiibin ayaana ugu jawaabay in uusan marnaba ka hari doonin qof aan xumayna uusan xumayn karin. waxay u sheegtay in ay xiriir leeyihiin sidaa awgeedna aysan u dulqaadan karin inuu gabar kale ku dulwado. wuxuu u sheegay in horaanba uu u sheegay in uusan doonaynin xiriir daacad ah iyo waxyaabo la mid ah noloshiisana uu doonayo inuu xor u ahaado. ayadoo taasi maanka ku haysana ay xiriirka samaysteen. waxay u sheegtay inuu tixgeliyo jacaylka baaxadda weyn ee ay u hayso islamarkaana uusan ka faa'iidaysan xaaladda ay awadii ugu sugan tahay. Xasan ayaa ugu jawaabay in xaalad walba ay ku sugan tahay ay tahay mid ay hore ugu qanacsaneed haatanna ay waajib ku tahay inay qanacdeeda u dhowrato maadaama uusan weli xiriirkooda jarin. inuu xumeeyana uusan doonayn xitaa haddii ayadan ay wiil kale ku dulwado uusan kaga xumaanayn maadaama ay nolosheeda xor u tahay. Igraan ayaa ugu jawaabtay in haddii uu xaalku sidaa yahay ay dareemayso inuusan wax jacayl ah u hayn keliyana uu waqtiga uun isku dhaafiyo. wuxuu u sheegay asaga oo qoslaya in marka runta laga hadlo aysan weli kasban jacaylkiisa marka laga reeba inuu xushmad buuxdo u hayo taasoo uu ilaa haatan ku wanaajiyo. ilmo ayaa soo dhaaftay Igraan indhaheeda waxayna u sheegtay in wixii ay noqotaba haatan aysan xaalad wacan ku sugnayn taasoo uu asaga sababteeda leeyahay balse ay dhici doonto maalin in sidan oo kale ay ugu gacan sarreyn doonto balse ay ku dayan doonin maadaama ay tixgelinayso xiriirka u dhexeeya iyo jacaylka ay u qabtaba. wuxuu u sheegay in hadiiba uu xumeeyey uu
diyaar u yahay inay xumayso haddii ay jaanis ku hesho, balse uu hubo inuusan xumayn maadaama uu wax walba oo ku saabsan uga sheekeeyay xiriirkooda ka hor haddii ay jirto qof midda ku eedana ay nafteeda uun eedo. Igraan oo tiiraanyo iyo ciil ay wejigeeda harqiyan ayaa isaga soo tagtay meel gooni ahna iska fadhiisatay si ay wax badan uga fikirto wixii ay samayn lahayd. Xafsa ayaana meel sare ka soo aragtay una timi si ay ula sheekaysato, laakiin waxa ay ku aragtay xaalad aan caadi ahayn maadaama ay murugsanayd. waxay weydiisay waxa ay la murugaysan tahay, waxayna u sheegtay in wax sidaa u siiwan aysan jirin, isla markaana ay keliya ka fikiraysay dhanka waxbarashada. Xafsa oo dareensaneyd in xaalku uu intaa ka weyn yahay ayaana u sheegtay in ay runta u sheegto si ay wax ugala qabato xaaladaha cakiran ee ay ku sugan tahay. Igraan xaqiiqdii waa ay jeclaan lahayd in ay arrinka u sheegto si ay talo uun uga hesho ama ugu yaran ay nafis uun u dareento, laakiin arrinku ayaa ahaa mid aysan marnaba suuragal ahayn in ay kala hadasho maadaama ay fashilmayso. waxa ayna mar kale u sheegtay in uusan waxba jirin, keliyana ay doonayso in ay keligeed waqti qaadato. Xafsa ayaa uga jawaabtay in ay muuqato in culays ka tan weyn uu haysto, ayna u wanaagsan tahay in ay wax walba u sheegto si ay xal uun ugu hesho, taasoo farxadeedii hore ku soo celin karta. Igraan oo aad u carootay ayaana si cod dheer ah ugu sheegtay saaxiibteed in ay sida ay u sheegtay ay wax yihiin, wixii haystana ay ayada un ku kooban yihiin, waxbana uusan kaga qusen ayada, wax xal ah iyo niyad dhisna aysan uga baahnayn, keliyana ay faraha ka qaado kana dul taagto maadaama kurbada haysta uuba wejigeeda uga sii daran yahay. Xafsa ayaa halkii laga sugaya in ay ayadana xanaaqda ku dhufatay qosol in cabaar ah oo ay iska qoslaysay, kadib ayayna gacanta qabatay Igraan una sheegtay in ay isdejiso ayna aayar fariisato. Igraan ayaana muujisay deganaan fariisatayne ayada oo xoogaa yara degan. Xafsa ayaana intaa kadib hadalka qabsatay ayadoo u sheegtay in ay garanayso sababta ay ilaa heerkan u caraysan tahay iskuguna buuqsan tahay. Igraan oo naxdin gudaha ah dareentay ayaana weydiisay bal inay u sheegto waxa ay ku fakaraysa hadiiba ay wax og tahay. Xafsa ayaana si dhiiran ugu sheegtay in ay og tahay in uu xasan ka soo caraysiiyey jacayl ay u qabto oo lagu dayacay awgiina ay ilaa heerkan la caraysan tahay. Igraan ayaana naxdin awgeed ay cirka iyo dhulka la madoobaadeen, waxa ayna isku dayday in ay beeniso ayadoo u sheegtay in ay iska kaftami karto maadaama aysan wax dhibaato ahi ku sugnayn. Xafsa ayaana u sheegtay ayadoo dhoola cadaynaysa in inta ay isdoqonsiga joojiso ay xaqiiqda kala hadasho, intaas iyo wax ka badan ay og tahay. talow sidee ayay ku ogaatay Xafsa arrimaha, maxaase u dambeyn doona? Igraan la socda qaybta xigta. waxaan ka soo xiganay bogga geeraarada. like, share, comment kaga cajiifka oo hore inoo qaada.